Adna aad baad mahadsantahay inaad ugu soo booqatay BBC marka ugu horeysa waxaan jeclahay si kooban inaan ku weydiiyo bal socdaalkaaga waxa uu ku saabsanaa socdaal dheer buu ahaa waxaan ka qayb galay waxaan ka imid Mareykan jaamacadda Philadelphia oo aan xiriir leenahay oo isbitaalka iyo jaamacadda Philadelphia xiriir baan leenahay arday bay noo soo diraan anna sanadkii mar baan tagaayo aan duruus ka bixiyaa marka sanadkan ardaydii ka baxaysay ka qalin jabinaysay xafladood baan ka qayb galay iyada oo 5 qof oo aan kamid ahayna ay siiyeen doctor degree honorary doctor of science oo lagu sharfay waxay ahayd markii labaad waayo 2002 waxay siiyay Clark University of Massachusetts iminkana waxay siiyay Philadelphia University of Pennsylvania in Philadelphia sharaf weyn weeyaan haweenka u soo hoyata geeska Afrika u soo hoyata iyo shaqaalaha isbitaalka ka shaqeeya runtii aha dadka soo hooyay sharaftaas waayo fariif kaligeed fool ma dhaqdo isbitaalku 107 qof baa ka shaqeeya marka waa sharaf waxaa jira shir caalami ah oo toddobaadka soo socda lagu qabanayo magaalada London oo looga hadlayo dhibaatooyinka loo geysto dumarka guud ahaan dunida goobaha colaadu ay ka socdaan marka film baa jira adiga gaar ahaan aad ka hadlayso wax qabadkaagii bal hadaad noo taabato waxa uu ku saabsan yahay baa horta filmka anigu ma sameeyay dad baa sameeyay oo waxay ka duubeen 3 dumar ah oo Soomaaliyeed 2 dumar oo Soomaaliya Dr. Xaawo iyo Elmaan iyo aniga oo Somaliland ah marka waxay doonayeen inay tusaan 3 dumar oo dalal dhibaato ka dhacday wax ka qabanaya ama wax ka hawlgalaya marka taas ayaa qaybta aniga igu saabsan ay filmku uu muujinayay waxa kale oo rabay inaan wax ka weydiiyo Adna waxaad aad maaragtay uga dagaalantaa dhibaatada gudniinka fircooniga bal hawshaasi in halka ay ku marayso hadda inaad nooga warantaan jeclaan lahaa dadaalkaas waa mid aan bilaabay 1976 maaha mid iminkuna aanu bilownay sanado badan buu socday 4 sano wax ku dhow ayaanu hawsha wadnay sababtoo ah anigu caafimaadka ka shaqeeya dumar dhibaato qaba ayaa noo yimaada annaga dhibaataas na saamaysa oo qudhayadu kama maqnina hawshaas annagaba waanu la kulanay marka maadaama ay tahay gudniinku yahay wax ka soo horjeeda diinta islaamka caafimaadkana wax yeelaya dhalmada dumarku markay ubadka dhalayaan dhibaato u geysta qasab bay nagu tahay in aan ka hadalno oo sida dalalka kale ee muslimka ay isaga joojiyeen dhibaatadaas oo ay dalalkooda uga mamnuuceen in annaguna haweenkayaga aan uga badbaadino yaad saartaan inta badan ma dumarka mise ragga ma horta waa su'aal wanaagsan su'aasha aad baan u jeclahay intii hore waxaanu saari jiray su'aasha haweenka ayaanu kala hadli jiray laakiin se marka runtu timaado guriga ninka ayaa aabow ah ninka madax u ah isaga ka mas'uul xaaskiisa isaga ka mas'uul hablihiisa iyo caruurtiisa marka maadaama ragguna ay awood u helaan inay wax bartaan ama dhoofaan ama ay u helaan fursad ay ku fahmaan waxyaabaha laga yaabo in haweenku ay malaha muddo ku qaadato inay fahmaan waayo tacliintii baa ka maqan ama meelaha ay joogaan baanay gaaraynin qasab bay tahay in aabuhu uu ku yeesho amar ku yeesho dhibaatada inantiisa loo geysanayo